rasaasta dhacaysay ee aad maqlayseen iyo orodka aan ordayaba labaduba ma ahayn waxa hadda dhacayay balse waa mid aan ku suuradaynayay xaaladda qofku uu ku sugnaan karo marka uu dagaalka agdhaco dalkeena dagaal waa uu ka daalay dadkeennana xilligan ma xamili karaan in dib loogu laabto dagaal sokeeye oo aan ogahay dibka uu inoo geystay ma og tahay in magaalada muqdisho oo hadda soo kabanaysa weli uu ka muuqdo raadka dagaalkii ka dhacay dalka 30 sano ka hor dabcan waad isweydiinaysaa Soomaa inakeen aan ku soo tusay waa haraadiga gawaari dagaal oo qayb weyn ku lahaa burburka dalkeena gaar ahaan caasimadda halkan waa xaafadda Balaaksi ee Muqdisho waxa ay ka mid tahay meelaha ay yaalaan hubkii iyo gawaaridii lagu dagaalamayay burburkii dalka tani oo sababtay in dadka halkan ku nool ay xogogaal u noqdaan in nabadu tahay furaha nolosha beddelka dagaalka anigoo musharax Mas'uud in magaaladan dagaal ka dhaco waa wax ma taqaanaa mustaxiil ah sababtoo ah xilligan xilli dagaal ma aha waa xilli aan dagaal loogu talagelin marka dadka dagaalka ma taqaanaa maaragtay u jadbaysan xilli dagaal ma aha qoryihiina meel iska dhiga waa xilli ma taqaanaa electionka ma taqaanaa maaragtay iyo sidii maaragtay nin walba oo ugu guulaysan lahaa inuu ka shaqeeyaa fiican laakiin waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay in la isxakameeyo oo shaydaanka la iska naaro xilligan xilli dagaal ma aha ummadda Soomaaliyeed oo dhan magaaladii joogtaa fowdada iyo maaragtay iyo hala iska daayo dad waaweyn oo maaragtay ciro leh waa yeelaatiin markaan maaragtay bilsi dhacaysatiin ayaan ma taqaanaa maaragtay ummadda dhibaateynin wallahi ugu horeen magacaygu waa Zakariya Maxamed Mare waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho runtii su'aasha ay weydiisay haddaan isku dayna ka jawaabo runtii magaaladan waxay soo martay dhibaatooyin fara badan colaad dagaalo oo ay macnahay laga dhaxlay maaragtay isha dhibaatooyin fara badan sidii wadankii macnaha burbur laxad la inuu ku dhacay runtii haddaan fikradeeda ka hadlo aniga waxaan ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho burburkii ilaa hadda macnaha yani waxaan dadkii waagaas ku dhashay ilaa hadda naqallaasaas iyo mataqaana ku jiray alxamdulillah hadda maanta yani magaalada hadda waxaan u aaminsanahay inaan haysano xoogaa nabad ah oo noo soo iftiintay dadkuna runtii maaragtay waa ka daaleen dhibaato iyo dagaal iyo mataqaanaa isha wax la mid ah runtii haddaan mataqaanaa insha Allah magaaladu hadda alxamdulillah markii shalay laga reebo dhibaatooyinkii dhacay xoogaa waxay u muuqatay mid maaragtay yani in dib loogu celiyo kale dagaaladii iyo wixii macnaha lagu sahminayo kale laakiin dadka ama aniga fikirdeeda haddaan cabiro ma qabo in yani in waxaas lagu fikiro wadankan burbur iyo dagaal waa yani waa ka soo daalay aniga iyo adiga hooyada masaakiinta ah iyo aabbaha da'da ah ee cimrigiisa kala bar ku soo qaatay dagaal sokeeye diyaar uma nihin in nagula dul dagaalamo ee muxaafid iyo mucaaradow inoo tura oo dalka u naxa maxamed yaxya jiinow muqdisho